السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشن عشاكين وإلهي ما هدي مر لوادي مش هدي مر أفراد نوض شو صار بني أصحابي هدي أتصير أنا كأسبت هاي سبسكرايب شير تلايكت وأوقع حاجة أنا قل محي بحسو جيدنا وحاجة ما أنتوا حاربا إنه وجود كله شاكل مركي هالكا مرة يصب أولي سوي مد أمبلاسيدا يمادين كده غاتير تاها بليسكي وحد لما لا اسكو صوّد بحي درس كصوّد بحين حافظ يكون نقطي أرن لليابي مركي المي يرى أمبلاسي وعندي مد والله أركي إنه ماشي إلما بتشوقين بعدك وحي يكون نقطة أرن أمكان سيكون دعي سيكون أغان وين أركان maxaa dhacay maxaa qaldan dariski wax soo wada bixin naag xitaa bilis way ku qayleen si ku ogaaweysay ninka qabi wuxuu yiri nay tartiib naagteeda saa hawra hadina xishmad iyo si sharaf leh wax ku weydiiya qoftaan wayba yaabsanayd sababta ay ii soo wactay xaaskaygu baab waxay arrintan bay la yaabtay walaalo waxa iga qaldan ma aqaan ii imow bay igu tiri buu yiri ninkii dafanteen marka gabadhan miskiinta ah waa la waalayba waa la qalqaliyay qalqal baa la galiyay daawaa la siiyay waa la daroogeeyay maskaxdeedu ma joogin ayadaa la programinay sida bombalada ilmaheeda loogu ekeysiyay baa ayada xitaa waxay iska ahayd qob meel yaala waxa ay kala ogeyd maba jirtaba sababtoo ah waxay fahmi lahayd inay waxaan us ilmaheedii ahayn waxay garan kari weyda xitaa ilmaheeda goorta ay wax siin lahayd goorkay caana siin lahayd goortay cuno siin lahayd ayadu dhanba waxay ahayd musawir meel taagan waxay kala ogeyd ma jirto gabadhan ma garateen marka qisada waxaa dadka ama kaa korday iyo dhafoorada ay la qabsadeen see ku dhici kartaa dhowr bilood in ilmahaas yarkaa la haystay ay hooyadii fahmi weydo dadka waxay isweydiinayeen ilmaha marmar baa guriga la keeni jiray marmar buu guriga la keenayay masaraxdana waa la celinayay bombaladaa la qaadayay waa lasoo borgaraaminayay saas baa lasugu bedelayay marna ilmaha guriga joogay marna bombaladaa joogtay waxay ahayd isweydaar gabadhaana alleheed ka alleh waxa ay ka og tahay haba yaraatee ma jirto marka waxa waa adduunyada aan saaranahay asxaabey waxyaalo fara badan oo kaa yaabiya oo maskaxdaada geli waaya baa horta lagu arkaa bal idinkuna haddii aad waxyaalahaas iyo wax lamid aragtaan bal ila soo wadaaga anigu insaan idinla wadaagayo kale bal ila soo wadaaga idinkuna waa wax dhici kara weeye adduunkan ma naqaano adduunyadan waxa waaye dadkan waa dad ma aragtay si kale u shaqeeya markay sheekadu halkaa marayso odag uu qaraxmay islaanta ay yaabtay oo afka la wada taagay baa waxaa yimid meeshii boolis bay wacdeen cidi ambulance sheeka dhaafan ambulance baa la waxay waa la yimid waa maxay ahayd waa loo yimid reerkii dhammaan isku dhex yaacay maxaa jira waxay dhaheen ilmahaasaan meesha ilmaba joogaba yacni ninkan ayaa wuxuu yahay gabadha qaba nin sarkaal ah oo sir badan haya marka waxaa jiray qolo tuuga ah oo waddankaas ka jirta oo asaga daba taagan baa jirta oo dad baa ka xiran maadaama ninkan uu nin madaxa uu yahay oo ciidamada sida qaaska ah xuduudaha u jooga u yahay nin baa jiray maxay ay ka xirnaa tuugadan oo rabeen in madax furush ahaan ay u qaataan wiilkiisa sababta afduubku taas bay asxaabay marka ninkii ambulance baa timid meeshii bolis baa yimid waa la isku wada yimid waa la arkay meesha ilmo maba joogaan ba ciddan waa la toojar garaynayay ma fahante gabadha wiilka uu qabana guriga waaba iska joogtaa ma ogiyi waa lagu dul shaqaysanayay wax ay kala og tahay haba yaraatee ma jirto gabadhaana xitaa cuntada ay qaadanaysa baa waxaa loogu daray waxyaalo drops ah oo ay waxba ku kala ogeyn oo wixii bombala iyo wixii cunuga aysan kala garanaynin baa loogu daray asxaabey gabadhii ilmaha dhashay steve hooyadii waxaa la sameeyey waxyaabo oo dareerayaal oo drops ah waxaa dhibdhib ah oo daawo ah baa maxay ahayd lagu borgaraaminaya iyada laftigeeda oo ma kala garan karin ilmahan inuu bombala yahay inuu ilmaheeda yahay ayada dhan baa la waalayay asxaabey bes boliiska baa meesha yimid waa la isu yimid ambulance baa timid waa la arkay wuxuu inaysan ilmo ahayn maxay ahayd magaaladii o dhan baa isku soo baxday waa la ogaaday reerka in ilmahoodii la afduubtay bombaladii meesha markii la geeyey oo la arkay baa la taabtaabtay oo waa taqaanaan dad oo wax baaraya
waxaa ku jiray dhexdeeda waraaq dhammaan ay dalbanayaan dadkaas wiilka ka haystay in haddii ay rabaan wiilkaasoo nabad qaba 48 saacad gudahood ninka noocaas oo xabsigaas ku xiran la sii daayo ayagana ay wiilkaas si nabad qabta usoo dayn doonaan warqad ah baa ku jirtay markii la furay bombali cunugu eka waa la furay waa la akhriyey boliiskii telefoonno waa la iswada qabsaday afarta gees arrintii baa la dabagalay ninka wuu qaraacmay gabadha way qaraacantay wixii dadkan waxay ku dhici kartaa xaaskaygu inay ogaan weyso waxa guriga u jooga inuu bombala yahay iyo inuu cunug yahay see ku dhacday ninku wuu yaabay dhaqaatiirtii markii la baaray gabadhii dhiig baa laga qaaday oo wiilka hooyadiis gabadhii dhiig baa laga qaaday waxaa laga helay dhiiggeeda waxyaalo darooga ah oo maxay ahayd maskaxdeeda aysan caadi ahayn oo aysan shaqaynaynin oo aysan fahansanaynba oo xitaa ilmo iyo bombal iskuma ekay adiga qoftii waa un waxbaa lagu sameeyay laftigeeda way ogaadeen ayagana way ogaadeen in ma aragtay oo maxay ahayd gabadhan la daroogeeyey oo aysan ka warqabin ilmahaas yarka ah in uu ma aragtay maqan yahay iyada si loo sii waaro baa guriga hortiisa loo marmarinayay wiilka inta lasoo kaxeeyo ma lagu jeeraysiin walba kama hayso iyadana maxaan bombalaha ah oo guriga u dhex yaala bay moodaa ilmaheed asxaabay arrintii boliisku waa soo dhex galay waa la baaray tuugadii waa lala xiriiray waxaa la yidhi dhinkiina waa la idiin soo daynayaa ilmahaas isagoo nabad qaba aan helno boliisku waxay dhahdeen ma aaminayno dad shacab ah arrintaas soo galaan annagoo boliis ma aaminayno waxa boliisan aamin maxay ahayd ku qabin ma jirto annagaad mida shirqooleysaan annagu waxaan rabnaa ninkeenni oo meel hebla meel tuulo ah oo xuduud agteeda ah bay dhaheen hala keeno xuduudda maxayd albaniya iyo waddanka ku dhegan ma aqaan magaciisa wuxuu ahaay bay dhaheen halkaas hala keeno armani inay tahaan u malaynayaa xuduudda albaniya armani ka dhexaysa intaan u malaynayaa qisada bes halkaas hala keenay dhaheen marka wiilkii hal soo qaado ninkii ka xirnaa tuuga ahaa annagana wiilka halkaasaan keenaynaa halkaas isku dhaafsanaynaa bilaa ciidan bilaa shido dhag aan kala wareegsano dowladdu way ku adkaatay maadaama ninka uu nin aad criminaal weyn oo dambiye fara badan loo haysto uu ahaa haddana waxaa kusii adkaatay ninkan militariga ah oo isagana waddanka xuduudaha meel fiican jaga ka haysta isagana oo nin aad muctarif uga ahaa meesha oo ciidamada ay jeclaayeen wiilkiisu maqan yahay arrintii waa la isku wareeray oo maxay dowladii iyo wixii waxay noqotay arrin maaragtay nooc kale ah afduub nooc kale ah noqday waxa ay weligood arkin aysan maqlin buu ku noqday iyagii waxay ku qasbanaadeen dowladdii si ilmahaas lagu soo badbaadiyo inay ninka tuugga ahaa soo ama bixiyaan oo lasoo qaaday ninka tuuga ahaa meeshii ay kula ballameen kuwii tuugada ahaa la keeno ayagana ay cunuga keeneen distance uu u jiro si aysan waxbada iyo waxaas u dhici karin adiga tuugadii way ka guulaysteen dowladdi lama arag lama maqal tuugo afduub madax furasho noocaas ah oo adduunyada ka dhacdo kii ugu horreeyu ahaa oo joornaaladii iyo waxa dhan ay soo qaateen tuugadii si nabadgeliye qabta baa tuugoodii weynaa loo sii daayay ciddana maxay ahayd ilmahoodii ku heleen wiilkii raa steve reerkooda loogu soo badbaadiyey